بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان ولا لها خيارات أصحابتها إن شاء الله هاي جنر كي واني وعيجين كحرا ولا ليال سودو هذا سودو كروح سودوين وحيتها ولا لها إجلس على فيسبوك بيج كي يولي بتيك توك أخيار يا أصحابي ما أنتم حربا إن شاء الله ينادي له ذا وقصة صحيحة اللي سوى حيتها هدي أرتها قف عن أخلاق وناكسنين عن طبيعة وناكسنين ضدك إلهي أبورتها هذا حيوان أم بني آدمني هدي أفكاري أدنك كنا بتقولي ويان عواقبكاga meesha ku dambeyn doonto inay noqon doonto meel aan la mahadinin sidaas arintaas ay ka hadlaysaa soo dhawaada aan bilaabay ninka qisadan ka sheekeynay horta wuxuu yiri qisadeen waxay bilaabatay buu yiri markii ay hooyadii dishay bisadaas wuxuu yiri markii ay dhimatay wuxuu yiri god baan u qoday godkaasaan ku aasay buu yiri muddo kadib laakiin waxa dhimatay buu yiri hooyaday markay dhimatay wuxuu yiri sida dadka islaamka loo sameeyo buu yiri baa loo sameeyo wuxuu yiri waa la kafanay oo waa la dhaqay janaasadeeda ayaan qaadnay janaasadeeda markaan qaadnay baa waxa dhacday buu yiri in janaasa kale oo dhinaceena la wada aan la kulanay taasna wax qariib ma ahan oo maxaa yeelay dad fara badan ayaa dhiman kara sideedoo kaleento laakiin arrinka qariibka wuxuu yahay ninka wuxuu yiri janaasadii la wada ma ahayn janaasad bani aadam ah laakiin waxay ahayd janaasad bisada ah waa laga yaabaa qaarkiina arrintan intii maaragtaa oo arkaan si qariib ah laakiin arrintan dhacdo dhab ah oo xaqiiqo oo dhacday bay ka hadlaysaa insha Allah markii aan maaragtaa qisada dhamaadkeeda gaarnaan waa ogaan doontaan sababta arrintaas ay u dhacday iyo waxa ay tahay ninka adiga wuxuu yiri waa naxni buu yiri waa argagaxnay buu yiri laakiin haddana wuxuu yiri hawsheeni baan sii wadanay wuxuu yiri hooyadii markaan qabriga dhignay waxa dhacday buu yiri arrin aynan filaynin oo nagu noqotay kedis haddaba khiyaari asxaabay qisadaas ay insha Allah ilaa dhamaadkan isku ogaana bal arrinta kediska dhacda maxay tahay hooyadiis maxaa maaragtaa maxay bisad maxay u dishay qof noocee bay ahayd insha Allah horta qisada wuxuu ka sheekeynay waxay tahay nin dhaqtar ayaa waxa uu warinayaa qisadii ugu la yaabka badneed ee uu kala kulmo qof bukaankiisa ah qisadanina waxay tahay maalin maalmaha kamid ayaa waxa dhacday buu yiri waxa ii soo galay qof bukaan ah qofkaas bukaanka markuu ii soo galay qof wuxuu ahaa hadalkiisa iyo maaragtay hab dhaqankiisa buu la yaab leeyahay markaas ayaan waxaan sameeyay buu yiri qalin iyo waxaan soo qaatay warqad bukaanka ayaan soo dhaweeyay waxaan ku yiri ii sheeg waxa naftaada ku jiro dabcan halkaas waxa ka muuqata waxay tahay in dhakhtarku uu yahay dhakhtar maaragtaa طبيب النفسي كدبنا waxa dhacday inuu ii bilaabo sheekadeedu waxa ay bilaabatay buu yiri ninka nadaga markii aan guursaday kadib aniga iyo xaaskeyga waxaan la nooleen buu yiri hooyaday waxa sababta aan u guursadayna waxay ahayd buu yiri hooyaday waxay ahayd buu yiri islaam waayeel ah kaligeedna nool waxaan rabay buu yiri qof wehelna u noqdo caawisana dabcan sidaas ayaan dhacdo gabadha aan xaaskeyga hooyaday waxay u ahayd buu yiri wehel wayna caawin jirtay buu yiri laakiin hooyadii buu yiri waxay ahayd buu yiri islaan adag qallafsan oo gabadha xaaskeyga mar walba way caaysaa way ceebaysaa way dhaleecaysaa iyadoo waliba biduun sabab la'aan bay maaragtaa intaas oo dhan ku sameynaysaa hooyadii kaliya dhibaatada wuxuu yiri kuma heen xaaskeyga ee waxay sidoo kaleentood mar walba hadii goor ka soo dacwoon jiray buu yiri dariska oo iyaguna ay dhibaato ku haysay sidoo kale hooyadii wuxuu yiri ma jiro xayawaan hooyadii horteeda maray oo ka badbaaday waxay wadan jirtay buu yiri ushaas ayna maaragtaa xayawaanada ilaahay ku leen jirtay buu yiri almuhiim hooyada waxay ahayd buu yiri islaan aad u adag dabeecad ahaan aadna u naxariista wuxuu yiri xaaskeyga arrintii dhibaatada hooyadii ku hayso u dulqaadan weys maalin maalmaha kamid wuxuu yiri way itin waxay ugu tiri buu yiri ninkeygiyo anigu waan ku jeclahay laakiin hooyada dhibaatadeeda iyo ihaanadeeda intaa in ka badan uma dulqaadan karo haddaba niyo waxay tiri laba mid adaa u doorle in waxay tiri aniga adiga aan hooyada intaan ka guurno meel gaar aan degno ku noolaan halkaas nolosheena ku wadano iyo inaan hooyada maaragtaa iyo in aniga ii furtid markaas ay wiilkii wuxuu sameeyay garan waay wuu murugooda hooyadii kamuu tegi karo waa islaam waayeel oo sababta u guursaday bayd gabadhan inay xanaanayso gabadhina hooyadii dhibaatadeeda way taxamul weyso waa tan la ifur ma furi karo dee waa xaaskiisii wuu jecel yahay hadda u guursaday wuxuu asoo fakarayo ayaa waxa u timid hooyadii oo markaa maqlaysay gabadha xaaska hadalkeeda hooyadii waxay ku tiri wiilkeygiyo anigoo da'daana oo intaan la eg miyaa jeclaysatay inaa iga tagtid oo waxaaba rabtaa miyaa meel aniga iga durugsan anidii weyn inaa ku noolaatid adii xaaskaa ku noolaataan waxay tiri haddii asaas jeclaatay aniga wax dhiba uma arko wiilkeygii baa tahay mar walbana farxadaadaan rabaa hortaada qeyr laha dhigo wiilku wuxuu yiri hooyoy intii aan noolahay adna aan nooshahay meel adiga kaa durugsan ku noolaan may kaana tegi mayo saas ugu kasoo tegi
wuxuu yimid xaaskiisa wuxuu ku yiri gabaray dhageyso aniga hooyadii ani kaligeey dhashay waana ku aqaana dabeecadaheeda sida ay tahay haddii aad dul qaadan weysana waa xaqaaga oo kugu luumayo ku dhimayo yani maxaa ilaa ugu dul qaadan weysa laakiin anigu waxaan ku sheegayaa buu yiri hooyadii ka guurimayo kana tagi mayo ee waxaan ku sameeyay arinka kale aad maaragta iga dalbatay oo ah fureenka gabadhi way carootay wixii aad reerkoodi markii aaday way xanuunsatay markay xanuunsatay baaritaan ay tagtay waxay soo ogaatay buu yiri inay uur leedahay markay soo ogaatay baa waxaa dhacday reerkeedii waxay ku yiraahdeen gabarayna dhageyso reer inuu burburayo wax sahlan ma adigana waa ku kanaa ilmeer baa calooshaada ku jiro ilmahan wuxuu u baahan yahay xitaa hooyo iyo aabe isla joogana dhexdooda ku koro marka waxaan sameeynaa arintiina anaga dhaxgalayno islaanta sudohdaan anaga u tagayno inay dhibaatada ka diisan anaga kala soo hadlayno sidii yaa dhacday oo reerku waxay u yimaadeen waxay tahay islaantii gabadha sudohdeeda ahaa waxayna ku yiraahdeen islaan yahay gabadheena dhibaatada ka daa oo afkaaga ha ku dhibaateenin waxba kuma geysato waa iyada ku ilaaliso ku qidmeysay waxay tiri waan qaatay warkiina maanta wixii ka dambeeyay gabadhan ma dhibi doono maxaa yeelay bitri waa gabadhii waxa maaragta xaaska u ahayd wiilkayga sidii baa lagu joogay gabadhii gurigeedii ku soo laabatay si ay ilmaheeda uu halka ugu dhasho ilmihii markii ay dhashay islaantii wiilka hooyadii ahayd waxay noqotay sidii hore ay ahayd isi ka daran waxaa intaas u sii dheeraa inay markaan gacan ula tagto oo gabadhii yarteena ay garaacdo markii xogaa soo yaro weynaato ilmo dhaqaaqayo maaragta dhulka maraya noqotay inay garaac ku bilowdo inay waliba garaacdo si arxan daraayo garaacdo gabadha hooyadeedna inay maaragta sidii si ka darnay u bahdisho sidii si ka darnay maalin walba u maaqto gabadha yarta ahayd ay iyada u ahayd mar walba iyadu way ka baqan jirtay iyadeed hooyo aad bay uga baqan jirtay wayna nabceed oo aad bay u nabceed sababtuna waxay tahay mar walba way caayi jirtay way ihaanaysan jirtay way dili jirtay sabab la'aan maalin maalmaha kamid ayadoo la wada fadhiyo buu yiri oo hooyaday aniga iyo xaaskayga iyo gabadheedii aan fadhino qadeynayno baa waxaa noo soo gashay buu yiri bisad soo gelin laheedaa bisadaasay bisadii markay soo gashay bisad yaanyuur ama maaragta mukulaal qof walba soo yaqaan aanoo soo gashay buu yiri markay noo soo gashay hooyaday ushi ay haysan jirtay ee xayawaanada ayagoo banaanka joogaba kaga nabadgeli waay la dhici jirtay baa maanta bisad guriga ugu timid bisada guriga markay ugu timid hooyaday bisadii buu yiri ushi la dhacday madaxay uga bilowday buu yiri bisad way qaylisay anaga waa ku qaylina hooyo kada bisad way la dhacday markay saddex maaragta mar ay madaxa uga dhufatay buu yiri ee bisadina xanuunkii geeridu uu qabtay buu yiri ee baarka bisad qaylinaysa buu yiri baan soo kacay buu yiri markaan soo kacay darbadii ugu dambeysay markii uu dhuftay buu bisad way dhimatay markay dhimatay baa waxaan ku yiri buu yiri hooyo maxaad u dishay aabadishide maxaa hadana sidan arxan darada ilaa ay naftu ka baxdo aad usha ugu garaacaysi wuxuu yiri sidan diinteenu ma ogolo diinteenu nama farin xayawaanada dilno waan tagay buu yiri bisadii baan qaaday meel guriga dhinaciisa baan wuxuu yiri god ka qod halkaas aan bisadii ku aasay bisadii markaa halkaas ku aasay hooyada waan soo laabtay waxaan ku yiri buu yiri hooyo shayga aad sameysay shay xaraam ah waa ilaa agtiisa ilaahayna uu ka xisaabin doonaa kadibna waan hooyada way ku carootay buu yiri oo waxay u tiri buu yiri ma waxaan u daayaa intay cuntadeena cunayso waa ka tagay buu yiri xaaskayga iyo gabadhaydii oo maaragta mansarkaas ama arintaas argagaxa leh la kulmay oo argagaxsan qolka ku jiraan u tagay waan soo dajiyay kadib wuxuu yiri waan soo laabtay hooyaday maalintaas habeenkeedii wuxuu yiri dhakhtarku uga sheekanay mugtay wuxuu yiri dhakhtar ma ogeed buu yiri inaan ku soo sheegay inay hooyaday waxba ka cabsanin ee tahay islaan adag oo qallafsan oo maaragta aan daciif ahayn soo kuma soo sheegin buu yiri maalintaas ka hor ma arkin buu yiri hooyaday yani maalinta ay arintaas sameysay habeenkeedii ka hor ma arkin buu yiri hooyaday oo saan u cabsanayso waxaa dhacday buu yiri habeenkii kala barkiisi inaan maqalno codad bisada badan oo dhawaaqayo markaan maqalnay buu yiri daaqadii baan furay daaqadii markaan furay mise wuxuu yiri meesha aan bisada ku aasay waxaaba dul dhooban bisada badan oo aragtidooda markay aragtidna argagaxa dareemis bis wuxuu yiri daaqadii baan iska xiray buu yiri hooyaday wuxuu yiri aan u tagay buu yiri hooyaday qolkeeda markaa u tagay buu yiri hooyaday wuxuu yiri waxbay way hadlaysaa buu yiri waxbay sheegaysaa buu yiri wixina anaga ma maqli karno buu yiri cunay baa laga haystaa buu yiri argagax bay dareemaysaa waxa u malaysaa buu yiri sida qof koomo ku jiro kalentood wuxuu yiri waan dul taagnay waan la hadal hooyo waan wacay buu yiri hooyaday wuxuu yiri
inay ila hadasheen rabtaa sidii inuu qof gudaheeda ku jiro uu cadaab ku sameynayo kalintood wuxuu yiri nalama hadli karta buu yiri sidii inuu qof gudaheeda ku jiro cadaab ku sameynayo kalintood nalama hadli karta buu yiri arintaas wuxuu yiri way soo laalaabatay buu yiri marar badan ay soo laalaabatay yiri kadib waxaa dhacday buu yiri maalmaha kamid inay hooyaday baxdo oo guri agteena ku yaalay oo markaa cidla ahaa guri iska yar jajabno cidna deganin aha bay aadi buu yiri hortiisa gurigaas fariistay buu yiri guriga hortiisa markay fariistay buu yiri bisadii aan soo sheegay wuxuu yiri guriga dhinaciisa meesha bisada ku aasay dhoobnaa buu yiri waa soo weeraray buu yiri hooyaday bisadii markay soo weerareen wuxuu yiri si xun bay u dhaawaceen buu yiri bisadii dawad garan karta adigoo bisado aad u tiro badan oo weerar kugu soo qaaday arintay ku geysan karaan ama dhibaatada ku geysan karaan intee la egta hooyo wuxuu yiri dadka dariska wuxuu yiri soo qaliib buu yiri mar ayagoo dhahay buu yiri war islaanta waayeelka hal badbaadiyo bisadaha laga badbaadiyo way soo caqal carareen buu yiri dhawaqi dadka dariska aan ku soo baxay buu yiri markaan soo baxay waxaan arkay buu yiri hooyaday oo dhiig baxayso dhulkana taalo bisado badanna ma aragtaa ay dhaawac u dhisteen kadib wuxuu yiri hooyo waan qaaday buu yiri iyadoo dhiigeedu saa dhulka ugu qubanay isbitaalka markaan geeyay wuxuu yiri hooyo arintaas daraadeed ay u dhimatay hooyo markay dhimatay wuxuu yiri sida dadka islaamka loo sameeyo wuxuu yiri waa la kafanay buu yiri waa la dhaqay buu yiri waa qaadnay buu yiri meedkeeda markaa qaadnay buu yiri markaa sii soconay waxa dhacday buu yiri ina aragnay buu yiri janaasadii hooyaday janaasad la mid ah oo la wado wuxuu yiri arintaas inta lama yaabin laakiin waxa la yaab kale waxa weeye buu yiri in janaasadaas la wada aysan ahayn bani aadam ama bashar ee ay tahay bisado wuxuu yiri waa naxni buu yiri waa argagaxnay buu yiri hooyo qabrigeeda baa dhignay buu yiri waa soo aasna waa kasoo tagnay buu yiri markaan kasoo tagno waxa dhacday buu yiri aniga arintaas arka darteed inuu qalbigayga xasili waayo ilinteeda sidii roobka isaga qubato hooyadii dhimashadeeda iyo firaaqeeda aan aad uga murugoodo intaas kaliya iguma sineen murugada wuxuu yiri habeenkii markaan seexday buu yiri hooyaday wuxuu yiri riya igu timaada riyada markay igu timaadeen wuxuu yiri wuxuu yiri iyadoo ma aragtaa dhaawac iyo dhibaatadii bisadaha u geysteen iyo kuwa kasii daran xagxagtimo ay ku yaalaan bay timaadaan wiil markaas waxay dhahdaan wiil wiilkaygiiyo i badbaadi dhakhtarkii markii wiilka halkaas sheekadii marinay wuxuu yiri wiilow dhageyso aniga wuxuu yiri sida iga ka muuqato yiri dhakhtar ma baahnid buu yiri xanuunkan ku hayna xanuun dhakhtar ka daweyn kar ma buu yiri ee waxa u baahan tahay buu yiri dawadaada waxay agtaa la buu yiri wadaadada diinta ta utagtid buu yiri bariyadan uga sheekay horta waa idin soo kala sheeka dhaafay riyada wuxuu yiri riyadan daraadeed buu yiri anigu waxaan noqday buu yiri qof ma aragtaa aan noloshiisu aysan dabiici ahayn qof aan joogin maqana jooga ah qof wuxuu yiri habeen walba riyadaas ay ku soo laalaabanayso subaxdii wuxuu yiri waxaan la soo kacay buu yiri sidii inaan hoo kale qof waalan oo kalentood dadka waxay arkaan buu yiri sidii inaan waasho caqligeygii uu tagay dhakhtarkii marka wuxuu yiri u tag wadaadada arintaadan u sheeg ninka adaga uu tagay wadaad uu tagay wuxuu yiri wadaadkii sheekadiisa uga sheekay wadaadkii wuxuu yiri soo dhawooniyo hooyada waxay dishay buu yiri bisad caadi ma ahayn ee bisad jin ah bay ahayd buu yiri bisadaha madmadow ee foosh xun aad arkaysid wuxuu yiri oo ma aragtaa xabaashi aad ku bisadaas ku riday ee maxay toolo dul dhoobane waxa weeyaan buu yiri bisadii ay dishay bisad ma aragtaa bisadii la qaraabadii ehelka ahaa way iyada u dhawaaway bisadan u dhawaaway buu yiri waxay yihiin buu yiri bisadaas arkaysid waa bisadii aad aastay ee hooyada ay dishay bisadii la qaraabada ahaa ee ma aragtaa ehelka la ahaa weeyaan buu yiri ee waxa sameeyay buu yiri xabaashi hooyada waxay maalin walba kaaga tabanayso yiri kulada buu yiri ee caaw wiilkaygiyo xabaasheeda dhibaato xabaasheeda ama qabrigeeda waxba ka jiray wuxuu yiri inta qabriga furtid wuxuu yiri soo qabriga baan furay buu yiri qabriga markaan furay arinta la yaabka la qabriga ugu tagay wuxuu yiri ma malaysan kartaa wuxuu yiri waa argagaxay wuxuu yiri hooyaday bisadii aan gurigeyga dhinaciisa ku aasay baa xabaash kula jirto yiri wuxuu yiri waa naxay waa argagaxay waxaan sameeyaan garan waa talaafaradii ka baxay laakiin wuxuu yiri markii waa isdajiyay wuxuu yiri bisadii waa soo qaaday meel kale ku aasay yiri horta wuxuu yiri waxa ilaahay mahadiisu yiri maalintaas wixii ka dambeeyay hooyada wuxuu yiri riyo iguma imaanin buu yiri ayadoo ilaahay wiilkayga iyo caawi iguma imaanin buu yiri eebal hooyada dhibaato waxa ku haysay buu yiri bisadaas xabaash kula jirtay subhanallah wa iyad billahi rabbil alamin arintaas ama qisadan kaas ku egtahay waxa ay ka tarjumaysaa waxay tahay hadii aad dadka insaanka ilaahay ee maaragtay ilaahay u abuurtay aad afkaaga iyo adinkaaga ka nabadgeli waayaan xayawaanadaas ilaahay u abuurtana hadii gacantaada maaragtay ay dhibaatooyinka ay ka nabadgeli waayaan in cirib xumo aad noloshaada ay ku dambeyn doonto in cawaaqibkaagu uu noqon doono sida islaantaas ay kasii daran ilaahay waxa horta magan oganahay inaan maaragtaa bani aadamkaas ilaahay iyo xayawaanaadkaas ilaahay aan dhibaateeno nafteeda iyo naftiinana qisadaasiita waxay cibro ugu tahay waxay tahay in afkeena iyo adinkeena laga nabad helo
إن شاء الله وحرجينا أخيار أصحابي قصة فرينتي حنبارسن تهاي إنك فائديسني وما عرفتا أفكيني أدنكين اللي قلنا بتقل دونه إسلام تاس dhibaatadii ay ku haysay dadka ilaahay wuxuu uga argudo xitaan inuu ku saladay jinkaasna inay dishay bisadaas jin ay sida sheekhu uu sheegay way dishay markay dishana ayadan dhibaataas ku dhacday waliba inta uga meeharin xataa xawaasheed inay maaragtaa la gareen oo maaragtaa ay ku dhibaateeyeen ilaahay raxmaanka horta waxaan weydiisanaynaa waxay tahay aan magan oganahay inaan afkeeni adinkeeni cidna ku dhibaateeyeen aqyaari asxaabi warjina qasasna ka faa'iideen wama santina khiyaari xukuma santin daawashada sida qurux badan ay la socotaan insha Allah fiidiyowga inta kun meel waxaan fiidiyowga xitaa salaam alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh